carruurtaa horta ballaan ilaahay u barinno allaha barakeeyo ishana aan ka duwno carruurta maxaa yeele mikrofoonka dadka qaar markay ay bannaanka ka maqlaan yaa waxay dhahayaan meesha bal aan fiirina maxaa ka jira meesha daa'imaada ilmo yaroo wax aqrinaya markay arkaan way fiirinayaan walaakin waa yarkaygii maxamed da'dii waaye maxaa wacan goormuu wax bartuu dhihi kelimadaasaaba kelimo inkaarana marka horena ilmaha dugsi kuma tarbiyaynaayo tacliin iyo diinna ma baraayo meesha markuu imaadana wuxuu soo qaadanaya miithaalkaasoo wuxuu leeyay yarkaygii da'diis waaye allahu akbar walla waxa dhacaa maanta waxaan aragnaa ciddi buu tegi islaanti buu u tegaaya markaasu heblo anaga waxaan hayno ma laho maanta waxaan arkay waxaan la yaabay cunug yarawgo hebel la dhan yaa maanta wuxuu akrinaya egaad aragto ilaahay ishaa ka qabta carruurta allah barakeeyo culummada culummo dhashan allah ka dhigo kuwa muslimiinta culummadoo bedeleen allah ka dhigo intaa markaan ka soo baxnay ikhwaani hadda markaskaas sida sheekh cali uu sheegay maalinba waxaan noogu imaanaa sanad cusub markii la gaaro sanadka ay xiraayaanba wax hor leh tadawur horlaan ku aragnaa maasha allah marka culummada iyagana allah barakeeyo cilmigoodana arriyaa wa sumca allah ka dahiro miisaanka xasanaadkana allah ugu saaro de kolley xoogaagii nigala qaadaya ayuutada ahayd ma ku faraxdeen mise waa ka naxdeen maanta waalidiintaa la hadlaya ku faraxdeen waxay ilmaha noogu soo fiijiyaan sheekashu way waasheen egine sheekash egin way waasheen bishoo kow joogba ilmaha iska soo fiijinayan baad maqlay hadda wixii ilmaha loo soo fiijinaya waa waxaan dareensanahay gabadha faa'iza ah iyo yarkeeray muxuu ahay magaciis cabdicasiis qur-aankay akrinaya weli may gaarin mulaaxadadaasaan ka soo gudbiyey may gaarin laakiin siday u akhriyeen iyo madka siday u saareen maddulwaajib almuttasil markii ka cuniga ka hadlaayay yacni waxaa weeye meesha loogu tago waxaa ma dhibo meel fog baa loogu tegi jiray wixii baa hadda ilin noola soo dhigay waalidow waxaad bixisa dib u raacin ku faraxaada koowaadna maanta ahaado berito aakhir markii la gaarina waad sii farxaysaa insha allah taaj buu kuu xiri doonaa cunugaada taaj intaa markaan kaga baxo ikhwaani meesha say u taalla waad ujeedin iyo waxa lagu baranaya qiimihiisa waxa lagu baranaya waa kalaamullah subxaanahu wa tacaala waxa lagu baranaya waa kalaamka ilaahay meeshay say u taallana waa ujeedaan muxsin intuu noo soo kaco inoo habaynayo meesha ma laha ma gacan kuma hayno annagana inaa wax quurna ma rabno isku keen marka qiimaha iyo sharafta ilmaha yareer waxay u soo saareen makhaarij alxuruuf xuruufta meesha laga soo saaray cunuga yare ani waaba yargaran waaye kastoo waa igu daba gadoontoo naftay waxay dheheen waaba kasi waayo maxay dheheen ilmaha maxay dheheen kuwii yaraayeenoo asaasiyaadka ka hadlaayeen maqlaysa waxay sheegayeen horta ma fahamteen idinka annaga waa ka boodnay beri hore markaan wax baranaya ilmaha aan ahayn waa ka soo boodno ma kasayno laakiin sheekh axmediya meeshay ka soo saareen aan la yaabanahay maanta waxaan inii baraynaa bay dhaheen xuruufta meeshay ka soo baxdaan oo la akhriyay wiil iyo gabar saa u tartamayaan maa sha allah waxaa muddaa caqiidadii hore ee gabdhaha dugsiga laga saari jiray la dhihi jiray wiilashay reebayaan meesha inay ka baxday wiil iyo gabar waa tartamayaanad soomina soo gaarin soo saamay dhihi jirin soomaalida gabdhaha dugsiga laga bixin jiray waxaan loo joogin bay baran jireen marka allah nii barakeeyo wakti ma hayno dictoorka meel ordahay hadalka waan soo gaabinayaa bir ramadaan baan joognaa qodobka aan rabay inaan ka hadlo waxaa weeye ikhwaani bishan inaan gaari doono maxaa la dhihi jiray bisheeda dambe ilaahay baa og soonka in la gaari doono hadda inaan dhammaysan doonona wallahu aclam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man qaama ramadaana iimaanan waixtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi iimaan iyo ajir gurubsi bisha waxaa rabaa in la dadaalo waxaa inugu soo socotaa layladii qiimaha badneed habeenka laylatalqadriga ilaahay qur-aanka uu noogu sheegay innaa anzalnaahu fii laylati alqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadri oo nin kastaa garanayo muslin ah ayaa inugu soo socotaa fooda inugu soo has nasiib darra dheh haddaan ka hurdno adoo hurda hadday ku martaa nasiib darra
طبعا كدنبان علماء كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام من كان متحريها فليتحريها في العشر الأواخر في السبع الأواخر وهكذا تدوار الدنبه لغير راديو ووي من كعب صحابي جليل كاه وحكو دارت ليلة القدر إني كجرته يا تدوار الدنبه في ليلة 27 بوير ليلة مركها لغا فايديسو adoo hurdaya ku marna ka faa'iideyso quraanna kaga faa'iideyso saddex shay baa laga faa'iideystaa tilaawatul quraan dhikrullah subhanahu wa ta'ala iyo salaad ha ku soo marto saddex daacado ku jirta leelada ha ku marto laakiin hadayna habeenkan ta youtube ka gasho ama aad gasho facebook oo aad leelatul qadri waan suuhay awdal indhaha ku taagto suxuurta marka you know bro si jalaala aatiro iyo ku saydi barkala u dhuntay meel kalaad aade waxa lama ogolo habeenkaas waxa la rabaa inaad ka faa'iideysato saddexda shay quraan aad akhriso salaad aad tukato iyo dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala inta ku amir inta say ka rabtaa waabad way ku soo martay maxay u dhigmataa khayru min 1000 shahr kum bilood ayaa u dhigmataa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka khayr badan tahay 1000 shahr culimada waxay ku qiyaasaan markay ka hadlaan 83 سنة iyo 4 bilood nin ilaahay cimrigaas iyo 83 sano iyo 4 bilood nin cibaadeysan ilaahay cibaadada ka aqbalad u dhigmata habeenka kale doo ku soo mar iidan ka faa'iideyso iyay ku dhaafeen waxaan inii dardaarmay naftayda iyo naftiinaba jiiraanka in laga warhayo kuleel badan baa jira dhaqaale la'aan badan baa jirta dad baa iska yaabanoo sakaraad wax badanna waan sheegnay رمضان كاد عن صور كان عن كجرنا كي كوري كي هوري عن صور دافنا كان ولي ما ندافع عن كجرنا مقتاي قصة عجيب لا دعوة حافظ جيران أو حافظ جارسون كميدة أيا جوار مسلمات هو ولادها حافظ ويدرين تو ويتكتو حيتره جيران بيحين أباي إني مكعدين محاوع هذيك مسحورتين يقول يا بنا لو قد هذا تفهم واسين iska dhageystay abaay iniga bas xuuratiina ma kacdiina habeenkii maxaa ugu aan bay tire baay xaytiraan ma bakacnaba maxaa noo kala gama bariis maharaga ma ay ku casheeyaan yaana ku afurnaa kuna suxuuranaa bay tire fiidkii hore haba kala ma haasano gabadhu way soo kacday wadaadkeeday u maato wal hebelow xaafadan jiiraanka inala ah ma kacdo ma suxuurato waxbana ma haastaano yaa way xaafadu waa xaafada hebla jiiraanka nala ما هي بلا ها ما هي بلا أنا محيي شيء المديرتي صار نبى ماشي دقيقة وحرك بتاعي هيك ما وشكت أنا محي أنتوا يسومري وش هادو دقيقة مسألة ده لما أقوله جيرانك وين لقى ورحيو أنت سو حديثك وصورت لك وقت وما هي أنا كشكينا جيرانك هذا كبر هاي قبل ده يدي هاد خير الله السيو مركي ولادك الصاح هاي وشكت ودي ولاد كذي ودي يشوك عدي إمامكم سيك وما تو وشكت وينسوا جالس خبرك أنا جواك عني xogaa baa loo aruuriyay masaayidka muslimiinta karfoon markii dhawaaqis ay maqleen xaafadda iidaheed si fiican bay u soomeen si fiican bay maartay u ciideen soonkan khayr laha siiyay nin baaba naga qaadaba aad u dhageystay nimanyo muslimiinay xaafadaha ganjeelada xiran subaxdii markii waaga bariyo ariga iskoriska muxuu sameeyaa ma garanaysaan soo ma garanaysaan ganjeelkaas madax ku garaacaya lax waxaan arkay ganjeelka inay furto garaaci وحي أخت ماشي عنتا صغار بريد علي عنتا بريد والغص حوتا بناس كتالا إني تالو مركي سوك عانا بنانك الغص وضعينا أرقا ماشي انتظار كسامي هلكا سو كسوي أرقا وحو قرت مقرن واسدي أرقا إنا سيسو حكا آخر بدن جيران كادنا سيسو إني قاد إني لها الله يا دمر كان هلكا فديو ما أنت دقي سنة عنتا كلام نوعا أو عرفيسو سنبوسها الهياجينيسو يا baashan la yiraahdo maxfooliyada intaad soo qaado aad inta soo basal iyo inta soo hilib intaad ku darto aad shiilayso dad baan haysanin berin waxa loo cunuga waan kari waabu noqdo cunugu soo kari waade oo ilmay adaa ilu soo jiide jiiraanka wax ka sii waxa Ilaahay ku siiyo subhanahu wa ta'ala ragga isku ma haleeyo bariyan dumarka wax dhaama ma leh jiiraankiina ka warqaba kelimooyinkaas rabay inaan inii dardaarmo sheekh Ahmed waxaan leeyahay sheekh Ahmed adiga culimada kale jazaakumullahu khair الله يني بركيو مركز كان وأصبرتين ماشي سوق جاري وأنا رجنا لكن
sheekh mugti inigu waa cabsan haasaane aw sheekh axmed inigu waa cabsataan way cabsatiin ilmaha fiijiya sheekh ilmaha weligiin cunug deen ha ugu akhrina dugsi fiijiya ilmaha hala yaroo fiicano waxaan iisoo harayaan culummada hadhow dadka bedeli doona ah nin aslanba qalbi wax ka haasa oo leeyahay cunug maxay inoogu soo fiijiyaan leeyahay dhibkeeday leed marka waxay ila tahay waxaan isku ogeyn dugsilow sooma tiini dadka ilmaha shooktaan sooma tiino maalinta iskugu kaan dambaysa maxaan u kala taga maxaad iga fiirinaysaan ma hilmaanto waxaan isku ogeyn maalinkaan meeshan kala tegayna maxaan isku ogeyn meesha inaad dhistaan soo ma en kilaaska aw magu darteen waa sidii leendada ugu xirna hadda ugu xirin aw ballante lacagtii aan gurnay aw intay aadiseen ma soo bixin waaseen lacagtaani waad kaatay lacagta keena sheekha qaar laasiye wuxuu ii sheegay lacagta qaarna ay maata qaarna ay maqan tahay lacagta keena meeshan dugsiga markii la furo safarta dambe aan umaano ishana iyadoo ka duwan aan u umaano hoolkanna xagka loo dafo daartii sheekhan la hadla waxoogaa intaa hanoogula daro dhaha intan yaroo koonaha jiirada gashay meel asaga ilaahay ugu dhawaado waa diina mug dhublowdkiisaa weynaha dorow ha anaaqe saa ugu yar dara kiso insha allah meeshan markaa balba su-aal baan inii weydini yaad sugaysaan inuu inii dhiso intan gurigan yaa la sugaasi may garan laadaan waxaan sheegayo gurigan leendada yaa la rabaa inuu ka bujiyo oo kor u qaado baatig saaro waalidiina yaadaan kula hadlaya haye sheekh culummada oo culummada ka sugaasiinba allah waryaa nimankan geysasana haye hadda maxaa u sheegi waasayn culumma allah meesha inagaa dhisaysa maxaa u dhihi waasayn mayna dhihin anagaa dhisaynaa tireen maalintii ballantaa isku ogeyn anagaa dhisaynaa baa tireen meeshaa dhisa alla hagaajiyo baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayr waxaan ku soo gebagabayni 3 shay cunuga haddii laga helo 3 shay markii la helaa wax la bartaa soomaalida annaga reemiyi wax ku soo barannay marka hore baadiyaan ku soo quraan barannay waxaa la dhihi jiray cunug qayli dheer macallin qaari ah aabba wax quur badan hooyo qalqaallo badan 4taa shay markii la helo ayuu cunuga wax bartaa macallin qaari ah waa macallinka haddee macallin qori ma aha macallin qori ma kasaysin ya macallimiinay raalli ahaada ha dharfina macallin qori yaa garan macallin qori waxaa midka kitaabka qori ku dhex wato qori cunug kastaa meeshuu gaaray qoriyuu gelin qori yaruu soo qaaday intuu joojin ina aladiina aamanuu wacaamilu الصaalixaati markuu cunuga dhaho kaanat lahum jannaat اlfirdows ma dhihi karo waa inuu kitaabka saa u firiyo meesha qoriga jannaat اlfirdows ku jirto fiirin kaanat lahum jannaat اlfirdowsi nuzula kaas macallin qori waa la dhahaa inta arday oo yersani oo dhan buu qori gelgelin qori kitaabka dhexdiisa kaa qaari maaha marka qaari waxaa rabaa macallinka markuu cunuga xag ka soo tuuro kuna in ka soo tuuro aayadda saa isku dabamarinaya soo taagan ushana gacad ku haaso ilmaha ay ka cabsanayaan garaacan iimelihi uga wada laakiin ogaada farxaan iyo niman baa taagan oo hawadii ku sii daynayeen wariyaa ilmaha garaaca ma dhihin ha ugu dilin qodobka labaad cunuga wuxuu ku barta waxaa weeye cunuga qaylida dheer oo carabka dadka jiiraanka ay ka saxayaan culummada martida ee xaafadda soo martide yaa war meeshaa wuu jabiyey yaa ka qabtaa xaggaa lagala hadli marka macallin cunug qayli dheer markii la helo oo qalala ukasiya carabkiisa saxan halkaas cunuga waxuu baranaya haddii carabka laga soxo aabba wax quur badan waxaa weeye waalidkaa wuxuu haya dhiibaayo aan dhehaynin acuudu billah sheekhu waa shee maxaa ugu can anigu bil kale naga furan hayaa egina bishi waa dhammaate shin loo bixiye ma rabo cunug inuu quraan bartana u rabaa warkaasoo kale fiijiya xaafadda ha jooge hataa hadduu fiican yahay xaafadda ha jooge ma aabbaha inuu wax quuro weye gabar qisa cajiibe dhaaro ka dhacde ma inii sheega mase waan iga daaya iga daa taas ma karaaye gabar baa way fiicanta laakiin si ahaan darafay ka fiicantee gabar baa waxay dhihi bish markay soo dhawaataba sheekh lacagtii keen sheekh lacagtii keen ilmaha dugsigu soo fiijinay sheekh lacagtii keen bay dhihi wadaadkeeda markuu salaadii baxay shaqay adayba sheekh lacagtii keen bay dhihi sheekh lacagtii keen baad igu haasaaye maxaa sheekash muu ka takooran yahay u dheh sheekh ilmahaasoo quraan ma baro wixiis keen bay tiri sheekh niyow marka tegina
سواء قلبتنا انت عمرين بده مرسد حدا يقول عرسه عيار قلبتك قبل شاق وحيس كانوا بس حتى يتعدل ما عنده شاق وحيس كان كذي رمضان بالقول جرا ما عنده حتى رمضان وحمر يا الله يتمن بيش مرة رايدا ما تشاخ العكتي كان بيترون بس لو يصدح مرة ما يداوي على سؤال قلبني وقاو وكان بيترون أنت ما هو قلبنا أنا خلاص سيدي كفر مرتك قبلي بل هذا يوحنا فيه لعكت معلمين يعني لو من هالسيو حضرت عنو قال أنا كفر حد ما يشم لسه جوجيو معلم كهكون مرميرين شنمات كسي وحفي على قام قادر شيخ سيدي حكون ما قادر عنوجي ما قادر إني قاو مال علماء يشكوها سينه كانوا بقى شغل عليه لو قعدنا كان كانوا يقولوا وكسي هوسه تولا حي تولا هذا ما يقاسنا ماشي ندقنا تولا ما ماشي تولا ما waxa ku baxsan shaaq lacagta kordhi sheekh saddex kun ka dhicunigi waddan beesadii waxaan ku soo gabagabaynay macalin waxa weeyaan waalid wax qurban Soomaaliyeed hooyo waxa way qalqaala badan in la helo oo hooyada ay dadaashay nafta xil iska saarto cunugeeda soo tartiibiso cadar soo qabiiso cadar soo mariso cunugaas oo carfay uu umaado ilkaha soo cadaydo macalinka bacdo xoogaa 4 saac tarmuushka hoosta ka geliso shahay day la helo lama wehelay kuwa nafaas ma waayaan waa inagu dheereeyay jazakumullahu khayr anaga saas maana aan jirin macalinka qoryaha duurka noo la diri jiray qoryahaas soo qaadayne qoryahaas dabka la saaraya loo xibaa lagu aqsanaya 9 saac 10 saac in la gaaro salaas waxa lagu tukanay macalinka 10 buu hadana geli 10 ku dhigaya 4 saac oo macalinka xaafada aadi asoo sakaraad gabdhaha way kala darmaayeen tuu markaa waxay leeyahay ka macalinka ugu yeero tucidi gaarin ka soo dawadare hadee baalkan shaha moogta sokorta qalbi aan jirtay ma garan jirteen soo gaarteen masayidoo sokor dhulta ala maartay raqiis ah bahal abriiqo suugu yaala adliyaabi dhulacda intii god la qoday lagu daadiyay xoolo wali waa afkana laga fureeyay fag markii laga siiyay carabkiisa kili dhidid ka soo daanay macnaha soo ka banin yaa hoos laga gilay markaas uu duceeyay macalinka sheekho wiilka igu duceeyay war ana ii duceeyay may dhahdo iyadana may quraan barato uma jeedo sheekho wiilka igu duceeyay marka Allah ni barakeeyo jazakumullahu khair waan inigu dheereeyay doctorka wali degdegaya waxaan rabnaa walaalayaal waxaad ogaatiin sadaqada bisha Ramadaan la bixiyo sadaqooyinka kale way ka takoran tahay aad bay u qiimo badan tahay nabiga kaleey salaatu salaam marka saadeeqtiisa zaid bay ahayd ajwad an-nas buu ahay juudkana waxa la dhahaa al-karam bay dhaxtaa aleeraada xagga luqadda la fiiro waa karam waa deeqsinimo deeqtiisana waxay u sii darneed xiina yalqaahu jibriil buu nabiga kaleey salaatu salaam jibriil markuu la kulmo xadiis uu cadeynay jibriil markuu maadana quraanku la akhrin jiray ramadaanka wuxuu ka sii darnay dabeel la dire orod badan nabiga kaga darnay khayrka soo ugu dadaal jiray sadaqada bixiya waxna dhiiba dugsigaas isha loo dhaamo samaqshan dugsiga isha loo dhaamo silacan iyo saxariirtan meeshan ka badsaara meesha hagaajiya maalin hore waan inii duceeyne lacag baad halkan ku bixiseen laakiin maanta waxa muddaa oo lacagta way gaar waasaan u malayn meeshan hadda dib isku noqta sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad